gabadhan lagu magacaabo Michelle waa hooyada ayartaas oo meydkeeda laga helay qolkeeda jiifka balse bilowgii hore dambi baarista ayaa cadeen u weysay dilkeeda si kastaba ahaatee kiiskan ayaa yeeshay weji lama filaan ah taasoo keentay ugu dambeyn dilkan xandarada leh balse intaan bilaabin muuqaalkeena maanta haday tahay markii kugu horeysaad soo booqato channelka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin oo uusan ku dhaafin like-ta iyo share-tana nagu dhiirigeli mahadsanid Michelle waxay dhalatay February 17keedii 1977 taasoo ku dhalatay magaalada yar ee Zayreville, New York. waa magaalo yar oo ka tirsan waddanka Mareykanka. Michelle waxay ahayd gabar ku adag go'aanadeeda, aqoon ahaan dhisan, waxbarashada dugsiga sare dhamaysatay. Inkastoo ay shaqo bilowday haddana waxay haminaysay inay noqoto looyarad, taasoo ku qasabtay inay bilowdo jaamacad. Michelle waxay iska diiwaangelisay jaamacadda NC State ee South Carolina. Sidoo kale waxay ku biirtay kooxda kubadda koleyga, balse markii dambe ay iskaga tagtay oo waxay rabtay inay diiradda saarato waxbarashadeeda. sidoo kale sanado badan kadib waxay qaadatay shahaadada masterka si dhaqsi leh ayayna shaqo uga bilowday shirkad ku taalay gobolkooda oo ay ka noqotay xisaabiye heshayna dakhli ku filan ugu dambeynna waxay kireysatay guri dabaq ah oo aad u qurux badnaa. February 2001 iyada iyo saaxiibadeed waxay u dabaaldegeen dhalashadeedii 24aad. Michelle ayaana baratay nin lagu magacaabo Jason kana da'weynaa sanado badan wuxuuna ka baxay jaamacaddii iyada ka soo baxday. Lamaanahan ayaa si dhaqsi leh isku fahmay shukaansi curdun ahna bilowday. Jason wuxuu ka shaqaynayay wakiilna ka ahaa shirkad soo saarta qalabka korontada isagoona ku noolaa magaalo kale balse hasaawahooda iyo jaceylkooda oo waqti badan ay geliyeen kadib Jason ayaa u soo guuray magaaladii ay deganeed Michelle iyagoo bilaabay inay wada noolaadaan ugu dambeynna guriga ayuu la soo degay 2 sano kadib Michelle ayaa uur u yeelatay bishii Agoosto 2003 lamaanahan ayaa isguursaday March 29keedii 2004 waxa uu dhalatay gabar yar oo ay u magac dareen Cassie. qoyskan ayaana u guuray guri weyn oo ku yaalay duleedka magaalada. 2 sano kadib Michelle ayaa uur kale u qaaday iyagoona go'aansaday inay aadaan magaaladii ay waalidiintood ku noolaayeen si ay waqti ula soo qaataan kuwaasoo ku noolaa magaalo lagu magacaabo Brentford oo 400 kilomitir u jirta gurigooda. laakiin nasiib darro halka ay ka dabaaldegi lahaayeen safarkaas wuxuu isku bedelay masiibo. intii ay wadada ku jireen Jason iyo Michelle waxay galeen shil halis ah kaasoo sababay inuu uurkii ka soo dilmo. qoyskan iyo waalidiintooda ayaa aad uga xumaaday arrinkan balse iyaga ayaa ka badbaaday. laakiin 2 bilood kadib Michelle ayaa uur kale yeelatay. labadan lamaana ayaana aad ugu farxay iyagoo ogaaday inuu wiil yahay waxayna u dabaaldegeen soo dhaweyntiisa. November 2006 Jason ayaa u ambabaxay safar shaqo isagoona ahaa wakiilka iibka ee shirkadaas. waxa uuna si joogto ah ugu safri jiray dalka shirar ganacsi iyo wada xaajoodi awgood. wuxuuna u safray magaalo lagu magacaabo Clintwood una jirta 490 kilomitir halka ay degan yihiin. isla maalinkaas Michelle ayaa casuuntay saaxiibadeed Shelley si ay u soo booqato. haweeneydan ayaa la sheegay inay maalinkaas oo idin la joogtay lana sheekaysanaysay makhribadiina ay ka tagtay oo gurigeeda aaday. subaxii xigay Jason ayaa wacay Meredith oo ahayd Michelle walaasheed kaasoo u sheegay markii uu magaaladaas tagay alaaba hadiyada oo dumarka ay jecel yihiin uu u diyaariyay Michelle. sidaas darteedna uu jeclaan lahaa in xaaskiisa Michelle u geyso si ay kedis ugu noqoto maadaama isaga uusan soo bixi karin uuna shaqadii wili ku jiro ugu dambeynna way ka aqbashay. abaarakoodii duhurnimo ayay tagtay guriga balse waxay islahayd waqtigan Michelle shaqada ayay jirtaa waayo waxay ka walwaleysay furaha halkay ka keeni lahayd. balse Michelle walaasheed waxay aragtay iridda garaashka oo jaban gacanta ayna iskaga riixday. gudaha ayay u gashay balse wax yar kadib waxay dareentay wax cajiib ah. waxay aragtay gaariga walaasheed Michelle oo yaala baakinka markii horena ay u maleynaysay inay shaqada jirto. kadib gudaha ayay u gashay waxay aragtay boorsada Michelle oo guriga lagu daadiyay wixii alaab ahaa oo ku jiray. haddana walaasheed ayaa ku qaylisay magaca Michelle laakiin wax jawaab u celiyay way weysay. taa beddelkeeda waxay maqashay qaylida eegooda balse waxay dareentay wax casaan oo ka qulqulaya qolka jiif. way soo gashay qolka oo waxay xaqiijisay inuu dhiig yahay. waxay aragtay wax jiifo meesha oo daboolan dhiig badan ka qulqulaya. iyadoo argagaxsan ayay marada ka qaaday balse waa walaasheed Michelle oo meyd ah jirkeedana uu waqti hore qabow noqday. isla markiiba waxay garaacday namarka gaaban ee booliiska ee 911. isla waqtigaas gabadhii yareed ee 2 jirkeed Cassie oo ku dhuumatay sariirta hoosteeda ayaa aragtay habaryarteed taas oo soo carartay kana soo baxday sariirta hoosteeda. kadibna banaanka ayay uga soo baxeen guriga. booliiska ayaana yimid waxay aragtay ayayna uga sheekaysay Michelle walaasheed. gabadhii yareed ee 2 jirkeed ayaa isla markiiba lagu wareejiyay dhaqaatiirta si ay baaritaan ugu sameeyaan. booliiska ayaana bilaabay inay baaraan goobta dambiga. booliiska ayaa ogaaday in gabadha yar lugaheeda uusan lahayn wax dhiig sidoo kale laga furay cafaayadda taasoo booliiska ay ku sheegeen in cunuga uu dhiig lahaa markii hore xitaa cafaayadiisa. laakiin musqusha ayaa la geeyay lagana dhaqay dhiiggii
cafaayadana laga siibay si aysan caddayn ugu noqon baaritaankana loogu aqoonsan. laakiin booliiska ayaa ogaaday xaqiiqo kale oo xiiso leh markii ay la xiriireen Michelle saaxiibada Shelley oo u sheegtay booliiska inay seexdeen markii ay ka soo tagaysay gabadha yarna ay gacanteeda ku seexisay kadibna ay ka soo tagtay. si kastaba ahaatee Michelle walaasheed ayaa u sheegtay booliiska markii ay gabadha ku soo cararaysay inaysan xirnayn wax cafaayada, taasoo baarayaasha ay xaqiijisteen isla qofkii dhiigga ka dhaqay cunuga uu sidoo kale ka saaray cafaayada. sidoo kale baarayaasha ayaa ogaaday in Michelle 2 faraanti oo meherkeeda ahaa ay ka maqan yihiin gacanteeda, balse dhammaan agabkii kale ee qaaliga ahaa ayaa meesha yaalay ayna ku jiraan lacag caddaan ah. sidoo kale 2 tin aysan lahayn Michelle ayaa laga helay jirka Michelle iyo meelaan ka fogeyn. markii la sameeyay baaritaanka DNA-da waxaa la helay faro aanan shaqo ku lahayn qoyska oo ku yaala qaybo ka mid ah qolka jiifka. booliiska ayaa baaritaan ku sameeyay kombiyuutar kaasoo xafiiskiisa uga shaqaynayay gurigana yaalay. dhanka kale dhaqaatiirta iyo khubarada meydka baaraya ayaa sheegay in dhaawac madaxa ah uu jiro Michelle, taasoo markii dambe ay sheegeen baarayaasha in 30 jeer in ka badan madaxa looga garaacay Michelle walxa culus, taasoo sababtay inay u geeriyooto. sidoo kale Michelle ayaa lahayd uur 5 bilood markii ay dhimanaysay, balse cunuga ayaana badbaadin. laakiin saacadaha rasmiga ay dhimatay Michelle ayaana la xaqiijin, balse khubarada waxay qiyaaseen inay u badan tahay in la dilay 5 ilaa 6 aroornimo. marka la fiiriyo sida arxandarada ah ee uu u dilay Michelle dambiilaha, dambiilayaasha waxay soo jeediyeen in dambiilaha uu garanayo dhibanaha nacayb xooggan oo uu qabo iyada. sida caadiga ah dambiilayaasha marka hore waxay eegeen Michelle ninkeeda, asxaabtooda iyo qaraabadooda, kuwaasoo u soo gudbiyay macluumaad badan oo xiiso leh. sida ay sheegeen dadkii u dhawaa, guurkooda ayaa ahaa mid dib badan, iyadoo Jason iyo Michelle ay ku murmi jireen arrimaha guriga. sidoo kale Jason kuma faraxsanayn markii ay xaaskiisa uurkii koowaad yeelatay, kadibna uu ka codsaday inay uur dambe qaadin oo dawo ay isticmaasho. laakiin Michelle ayaa diiday, uur kale ayayna qaaday, kadibna shil ayay wada galeen, uurkaasna uu ka soo halaabay. mar saddexaad ayay uur qaaday, laakiin ninkeeda kuma farxin, sida la sheegayna way kala tegi rabeen mustaqbalka dhow. si kastaba ha ahaatee, hal xaqiiqo oo cad ayaa jirta oo ka hor imaanaysa aragtida ku lug lahaanshiyaha Jason oo wakhtiga dilka inuu ku sugnaa magaalo kale taasoo u jirtay 490 kilomitir. Michelle walaasheed ayaa wacday Jason, taasoo u sheegtay geerida xaaskiisa. sidoo kale waxay wacday labada qoys, ugu dambeynna way imaadeen dhammaantood. si kastaba ha ahaatee, waxay ugu warbixisay wixii dhacay, laakiin Jason ayaa aad uga naxay waxa ku dhacay xaaskiisa. isla markiiba wuxuu u safray magaalada yar ee Raleigh isaga iyo qaraabadiisa kalenta. intii lagu guda jiray safarkoodii, Jason saaxiibkiisa ayaa soo wacay, kaasoo u sheegay in booliiska ay su'aalo badan ka weydiiyeen isaga, balse Jason ayaa go'aansaday inuusan doonayn inuu booliiska la hadlo, uuna rabo inuu qabsado lawyer, taasoo sii kordhisay tuhunka baaraha. sidoo kale Shelley oo booqatay dhibanaha maalin ka hor dilka ayaa u sheegtay booliiska arrin xiiso leh. Michelle ayaa u sheegtay inay dareemayso inuu qof si joogta ah u daawanayo baryahan dambe. Shelley lafteeda sidoo kale waxay dareemaysay in qof daaqadda ka daawanayo fiidkaas, oo weliba saaxiibkeed ay ka codsatay inuu soo lugeeyo maadaama ay ka cabsatay inay keligeed baxdo. dambibaarayaasha ayaa isku dayay inay helaan wax caddaymo ah oo la xiriira dilka inta suurtagalka ah, laakiin way sii wadeen inay baaraan ku lug lahaanshiyaha suurtagalka ah ee Jason. booliiska ayaa baaritaan ku sameeyay hoteelkii uu deganaa markii uu u safray magaaladii uu shaqada u aaday. shirka u dhacay 10 subaxnimo ayay kaamirooyinka ka baareen booliiska, kuwaasoo ogaaday in 30 daqiiqo uu dib ugu dhacay waqtiga shirka. sidoo kale booliiska ayaa baaritaan ku sameeyay kabihii guriga lagu dhex maray iyo kabaha Jason. inkastoo cabirka kabaha ay isleeyihiin, haddana farihii laga helay guriga iyo faraha Jason ayaa isku mid noqon waayay. sidoo kale subaxnimadii, haddii uu hoteelka ku sugnaa, sidee qof 490 kilomitir u jira u dili karaa Michelle? baarayaasha midaas xaqiiqo weyla noqon weyse. 3 November, mid ka mid ah shaqaalihii hoteelka ayaa ogaaday albaabka daaqadda xiga uu yara furnaa. sidoo kale wuxuu qolka ka helay dhagax casaan oo lagu taakeeyey, taasoo shaqaalihii kale ay la yaabeen, sababtoo albaabka mar walba waxaa la xiri jiray 11 habeenimo ilaa 6 subaxnimo. kadib ayay go'aansadeen inay hubiyaan kaamirooyinka, ugu dambeynna ay ogaadeen inaysan shaqaynin tii ku xirneed jaranjarada albaabka agtiisa. laakiin baarayaasha ayaa la kulmay ilaa iyo 3 qof oo kala duwan oo deriska ah oo sheegay in guriga Michelle habeenka uu gaari saarif cadaan ah ku agnoqnoqonayay. gabar isqarinaysana qaybta dambe ay u saarneed, laakiin kuwa kale ayaa sheegay in Jason marka uu safarka aado uu la kulmi jiray gabar kale oo xiriir la lahaa ilaa waqtigiisii jaamacadda, kana been sheegay safarada shaqo uu aado
waqtina uu la qaadan jiray gabadhaas. Laakiin baarayaasha waxaas oo idil caddayn uma hayaan. December 14keedii 2009kii 3 sano kadib dilka, baarayaasha ayaa waayay wax caddayn ah, waxayna soo ururiyeen dhammaan waxay haysteen oo caddeymo ah ee dilka ku saabsanaa. June 2011kii, xeer ilaalinta ayaa ku adkaysatay in Jason dilka uu u maleegay xaaskiisa, sababtoo ah furiinka uusan doonayn inuu ku lumiyo qayb ka mid ah hantidiisa maadaama ay isfuri rabeen. Sidoo kale xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay hayaan gabar ku markhaati furtay in Jason xiriir kala dhexeeyay Farantiga ballantana uu geliyay, waqti badanna wada qaadan jireen. Sidoo kale waxaa xeer ilaalinta timid gabar kale oo markhaati ah oo sheegtay in Jason ay ilaa iyo jaamacadda xiriir kala dhexeeyay Farantina uu geliyay, xitaa guriga Michelle habeen la seexatay Michelle oo maqan waqtina kula qaadatay. sidoo kale gabar kale ayaa xeer ilaalinta u timid, taasoo u sheegtay iyana in joornaalka ay ku aragtay sawir kaasoo maxkamadda ay u haysato dil uu geystay. haweeneyda ayaa u sheegtay xeer ilaalinta inay joogtay kaalin shidaal, taasoo ninkan baabuur cad uu watay shidaalna uu uga shubtay. lacag $20 uu siiyey, shidaalkana uu ahaa $15. markii ay sawirka ku aragtay joornaalka, saas darteed xeer ilaalinta ay ula kulantay si ay uga caawiso markhaatina ay uga noqoto. Jason ayaa markii ugu horreysay maxkamadda ka hor hadlay, sheegayna sida ay wax u dhaceen. wuxuu inkiray inuu dilay xaaskiisa, isagoo qirtay in guurkooda uu burbur ku dhawaa, balse wuxuu ku adkaystay in aakhirkii ay kala tegi lahaayeen aynan jirin sabab uu u dilo. sidoo kale qareennadiisa ayaa ku dooday inaysan jirin caddayn loo haysta Jason. sidoo kale waxay maxkamadda ka dhaadhiciyeen qof ku maqan masaafo intaas leeg uu dilo xaaskiisa weliba caddayn la'aan, iyagoo faahfaahin ka bixiyay masaafada labada magaalo iyo inta jeer uu shidaal u baahan yahay gaariga, iyagoo ku andacooday inuu u baahan yahay shidaal intaas ka badan. si kastaba ha ahaatee, xeer beegtada ayaa gaari waayay go'aan loo dhan yahay. garsooraha ayaana lagu qasbay inuu muddeeyo isku soo noqod sanad kadib ah oo ka dhan arrintan. midda kale, isla waqtigaas waxaa dhacay arrin kaloo cajiib ah. Michelle qoyskeeda ayaa ku qancay in Jason uu dilay gabadhooda, sidaas darteedna waxay go'aansadeen inay gudbiyaan dacwad madani ah oo ka dhan ah Jason. Jason gebi ahaanba uu iska indhatiray dacwadan, wuxuuna go'aansaday inuusan ka qayb galin. kadib markii la baaray caddeymaha la hayo, garsooraha ayaa ku soo gabagabeeyey in Jason uu yahay qofkii dilay xaaskiisa, waxaana Jason lagu xukumay inuu bixiyo $15 milyan. go'aankaas waxaa soo saaray maxkamadda madaniga. laakiin maalmo kadib, maxkamadda dembiyada ayaa u fariisatay kiiskan. garsooraha markii uu arkay caddeymaha ay hayaan iyo markhaatiyada, inkastoo DNA-da lagu waayey, haddana waxaa lagu xukumay xabsi daa'in iyo $15 milyan inuu bixiyo. inkastoo loo ogolaaday racfaan haddii ay keensadaan abukaatayaasha dambiilaha caddeymo ka badbaadin kara xabsi daa'inka. ugu dambeynna xabsiga ayaa la dhigay. daawade nagula wadaag fikirkaaga qaybta hoose, waad ku mahadsantahay la socoshadaada.